systemka weeyaan credit systemkan waxay isku qiyaasayeen dhaqaalaha sida ay in dadka Chinese ku ay u dhaqmaan sida dadka Mareykanku ay u dhaqmaan waxaan Chinese Mareykanku amaahbay ku jiraan qof awoodiisa dhaqaale ay tahay $3,000 ayaa wuxuu u dhaqmayaa sidii qof awoodiisa dhaqaale ay tahay $20,000 intaasoo credit baa ugu jirta maxay tolay in jeebka ugu jirta gaariga amaah buu ku haystaa guriga amaah buu ku haystaa furniture-ka amaah buu ku haystaa vacation-nada wuxuu ku tago samarkii wada amaah waa lacag khayaali aan meeshii aan oolin Chinese-ka waxay yiraahdeen dadka Shiinaha ah lacagtooda ay save gareeyaan oo qofkii wuxuu ku nool yahay intii xuduudiisa iyo kartidiisu ay tahay waxay noqotay ikhwa free market in la dhaqaalo inuu ku dhisnaado weeyaan waana dawladdu aanay faragelin dhaqaaqa dhaqaale ee dadka iyo afraadda waana faragelin waxa dhacay ikhwa waxa dhacay markuu dhaqaalihii u burburay ribadaasi aawadeed iyo amaahda aan loo baahnayn aawadeed waxa dhacday in dawladdii ay caawinayso bangiyadii waaweynaa ay caawinayso free market kime ya yoon ognay inuu Marcus dhintay laakiin gaalada qaarkood baan lahaa malaha Marcus maanta xabaashiisu ku dhex qosliya soo garmaysid laakiin nagu taa oran mayno waxaan leenuun nimankii lahaa waxa weeyaan free market waa dawladdu waana faragelin soo garmaysid maxaa dawladdu u geeyay inay bangiyadii ay caawiso ay lacag siiso waxa wanaagsanaan lahayd inay dadkan masaakiinta ah inay caawiso ay ahayd single mother-radan guryahooda laga qaadayo in si ribo ku istaanba islaamka aanu banaaneyn laakiin iyaga laftoodu inay caawiyaan bay ahayd halkii bangiyada iyo nimankan monsters-ka ah ee dadka xaday ee qararka ku riday inay maxay tahay caawiyaan ay ahayd وحن تا أنو ليه أيها الأخوة يعني طبعا موضوعنا معها لكن فوائده في عندي فوائده وفي عندي سو قالوا ميسيد وحي الحرام يا أيها الإخوة والأخوات مركا قاركو حكمة دا إنه نقولنا أي صورة قلة ولذلك أي أحكام توحي لدي تعليل بي لدي سبتها إن لولا هي حكم شرعي تعليل كيسة وقوع علماء هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فوائد كنت توحى وين لو حكم كاسي حكمة أوليه لأن شرع حكمة بكفر إذا أما إن أوغانا مينا أوغانين إما كهي نوم وقطو أما بريها نوم وقطو لكن إنه كمؤمنين هدير نحي وحويان وحن أوغانا وحي الله إنه فرض يالي وحي الله أتشديي وحي الله أحرمي حكمة بقدر بيسا يا إسلام كانت هاسي أيتهي أتشددي سبا إن الله سبحانه وتعالى له قانسمه وشرعيه سلقاته أي واجبة هذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرمي الخلوة وإن هويني أجنبي كاء وجوركي وحلال كوي هي إن الخلوة الله قالته أي النبي صلى الله عليه وسلم حرمي والنبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء إسكا إلاليه والإسكتيربو إن الدمر أتكا قشان لقى مقيه كري قودا فقال رجل من بايلي من الأنصار أنصارت أها أفرأيت كورا رسولك الله الحم حموك كورا حمونا سيدي إمام نور رحمه الله تعالى لفتي سو حكا كل شيء وحاول وا قريب الزوجي وزوجك قرابدي سرقة كأخيه سيدي ولالكي وابن أخيه إيو إن ولالكي إنا كودالي إيو وابن عمه يأذركي كودالي قال وحي النبي ويلي الحم الموت حم هو جيري ويان وأشرح دونا واحد لولو تشويه الشيخ محمد سود حديثك وشرح إن شاء الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما نبيجي قال له يا عبد الله بن عباس بايري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أيا قال وحويلي لا يخلون أيون لخلوين أحدكم يتكينون لخلوين بامرأة هوين أيون لخلوين ونكلنا النقن والنهي ويان والنهي يقتضي التحريم سيد أصولين تأيلهدين واي إلا مع ذي محرم إلا ولتشوغو قف محرم قبل دوهي واي متفقون عليه حديث كوالي اسكو وافقي أو يا اسكو وافقي واحد اسكو وافقي بخاري يا مسلم باسكو وافقي أحاديث ناس العلماء هذين waxa ugu xoog badan ka ay Bukhari Muslim isku waafaqeen dabeetana man farada bihi Muslim xadiiska uu waxaan jeedaa man farada bihi Bukhari xadiiska uu Bukhari keligii soo wariyo dabeetana xadiiska uu Muslim keligii soo wariyo waxa ku soo xiga ma kaana ala shart shaykhayn ahadiista shardigooga lagu soo wariyay Bukhari iyo Muslim shardigooga lagu soo wariyay ayaa ku soo xiga dabeetana waxa ku soo xiga xadiiska lagu soo wariyo ala shart al-Bukhari Bukhari shardigiisa lagu soo wariyo waxa ku soo xiga marka xadiiska uu maanta lagu soo wariyay ala shart Muslim wa ahlu majr yani tartiib saasiya ayay culimadu ay u yeeleen marka hadii la yiraahdo muttafaqun alayhi waa la isku waafaqay ayaa isku waafaqay waa istilaax ay culimadu ay adeegsadeen marka waxa loo jeedaa ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim Bukhari iyo Muslim ayaa isku waafaqay way mid walba ma wuxuu lahaa shuruud buu lahaa Bukhari iyo Muslim labadoodaba waxay lahaayeen shuruud iyaga u gaara oo dhigteen oo laazimeen ayay lahaayeen Bukhari shuruudiisu way ka adkeed shuruuda Muslim naam way sheekh maxamed wuxuu yiri kitaabkan Riyadu Salixiin kan baabkani تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ويوحي المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم وتأني مقرنسة أني إن كده حين سيدا بنت العم إن أنت أما قبضة وأديرك أودري أما تا أي إدداد الشيء أما تذهب روادك تتهين أي ده شيء هبرتها وإن أديرتها إن أبتدا يهبر روادكتها وما أشبه ذلك يوحي انتهى سرعة والخلوة بها حرام بوشيخويلي إن الأخل وضعنا وحاران وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان هدي أن هويني الأخل وضعنا شيطان باصد حيا نين إيا هويني كلي قودا شيطان باكو صدحا marka waxa meesha laga fishaa waa arrin weeyaan arrin khatar weeyaan وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وحجاب قداشي وحكوي دي ويان حجاب قداشي وحكوي دي قال وحوي مركان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشيخ شرحيه إياكم والدخول على النساء يعني إياكم بمعنى واحذروا ويان كدكتون هذا وهذا تحذير بالغ ودقنين حيالير أرنو نبي كاقدقي نبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة maslaxadeena ayuu ka talinayay ilaahay baa uu waxyooday wixii noo wanaagsan buu garanaya hadii wax inooga digo waxa inooga digay waa wax adag weeyaan iska ilaali buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam faqala rajulun min ansara nin ansarti kamid ah wuxuu yiri afara'ayta alhamu ya rasuulallah buu yiri rasuulka allah bal ka waran ninka qaraabadiisa way marka طبعا qofka qaraabadiisa قارنا وأصول قارنا وفروع قارنا وحواشي ويا أصوله وأبها يوحي كسيس الرأي أوجا وأهل مجر فروع ذادينا وحوين دوا إلمها يوحي أي سيدلين حواشي دينا ووحي هريرها كاحي ويا أما المعذيركي أما المعبتيجي أما هبروداكي كواسي أي حواشي لينا وين كأخيه وعمه وخاله وحصل ما سوق الأيه وين كلمة دنا شيخ وحوليه هو كلمة آدي وحيل دير مركها وحواجبة إن هوين إذا كل جد جرو شوكت إناني أقاربتي أني أجلم بويري واي
واي نبي